الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت حسنا دتك نداوني كل سود هذا برنامجك شمسو حسن فود شمسو مركور كل سود تلفزيون قناة الصومالية. ومحي هذا كم حسنت هاي سيد شرفت له ويوسف دويسي برنامج كان فكي سودان تعاوى ومعلن سبتئة. وان قلت شمسو أنا دين كبيرون واحد هاي جبر رنتي فنان ذا أبوان ذا heeso badan oo kala duwan sameysay ama adigu Allah xan ka leeyahay sida heeso wadaniya heeso jacayla heeso dhaanta ah heeso maymay afka maymayga la yiraahdo heeso reexamara marka hore goorma ku soo biirtay horta fanka wallahi anigu horta ilaa yaraantay fanka waan jeclaa waxaan ahaa Soomaalida dadka ilmaha markay yar yihiin riyoodo oo ku riyoodo waxyaalaha Suudaanta ah heesaha iyo maxay ahayd waxyaalaha hidii dhaqanka oo dhan aad baan u jeclaa kuwaas oo aniga waliba aan dhaxal ooga soo gaaray awowgay iyo ayeydayba ay dad gabi jiray ay ahaayeen bas ilaa iyo 14 jirkayga heesaha waan sameyn jiray waanan ku luqadin jiray hase yeeshee sidee ku bilowday markii ugu horeysay wallahi Soomaaliya markii aan yaraa iskuulada heesa ayaa la qaadi jiray markaas inaan heesaha jiro inaan xafido waxa iiga fududaa inaan aniga heesaan leeyahay intaan sameeyo intaas ma isku luqadeeyo aan ku luqadeeyo markaas ilaa iyo 10 jir ilaa iyo 14 jir ilaa maxay ahayd wasaaradda waxbarashada kooxda iftiin oo kale aan ku baasay tartan ay galeen laakiin way ii suurtoobi weyday in aan ku darsamo kooxihii Soomaaliya taasoo inaan waxbarasho aan dibadda ugu soo baxo iyo xaq family oo ahaa conservative ahaa dhaqan hees in la heeso waagaas ay cariiri u ahayd gabar kastaba ay gasho niyadda ayaan aad iyo aad uga jeclaa laakiin hadda muddadii ugu dambeysay 5 sano ugu dambeysay ayaan waxaan keenay inaan heesahayga aan ku luqadeeyo 5 sano ka hor heesaha waxa igu dhaliyay markuu wadankayga burburay anuu qurbo ku nool murugo badan ayaa maxay ahayd igu soo kordhay inaan ooyo aan calaacalo waxay ii saamaxday ama inaan ku dhaanteeyo ama inaan ku gabiyo on qoro waaga marka gorma Soomaaliya ku dambeysay oo ka timi Soomaaliya waxa igu dambeysay waxaan Soomaaliya ka soo tagay bishii iyadoo maalinta ay tahay talaado bishii June 3 1985 ya igu dambeysay markaas adugu waa iska garan kartaa marka adigoo yaraan baad ku timi qurbaha aad iyo aad anoo aad waan gartay marka heesaha kanaad sameynayso adigoo yaraan ku soo galay qurbaha heesaha inta badan aad ku luuqayso adiga iskala miraha marka ma familka hidahan ayay ka soo jeedaa oo familkaaga ayaa ahaa famil hidda u lahaa dhanka fanka mase wax adiga kugu dhashay wallahi hortu xagga family-ga aniga u lahaa waa dhaxaltooyo weeyaan xagga gabayga buraanburka iyo saarka iyo dhaantooyinka anna waxaan nasiib wanaag ku koray xamar haddana waxaan aan reerka anaga waxay lahaayeen ayeeyday iyo awowgay sida aan hadda uga jeedno heesaha qaar dhaantaad ku qaadaysaa qaar waa reer xamar qaar waa afmaymay macnaheedu waa different heeso kala duwan marka waxa leedahay familkaaga ayaa ka soo jeeda ayaa ah dad isku dhex jira oo meelo kala duwan ka yimi dhammaan gobolada Soomaaliya taas waxay ii saamaxday nasiib wanaag in dhaqamada Soomaaliya aan maxay ahayd aan ku soo koray ama dhaantada ama saarka iyo maymaygi iyo anigoo xamar ku dhashay ku soo barbaaray ilaa aan ka soo tagin markaas labadiiba markii aan dib u xasuusto inaan isku dayo erayo aan ku murugo bixi karo ama aan ku farxi karo kaleeto hadda heeska calanka kale waxa igu kalifay calankayga baan gaajo aad iyo aad ugu weyn aan u qabaa waxaan ku soo barbaaray calankaas dhalitaankiisi sidii lagu heli lahaa ayeeyday iyo awowgay ka sheekaynayay iyo sidii lagu yimid iyo inta u dhimatay markaas haddayse ahaan lahayn inaan heesahaas ku cilbaxahayo malaha waxaa noqon lahaa dadka calool xumada ama cudurro badan ku dhacaan iyo murugadii jajabkii wadankeeni
waan gartay markaad ka imanaysa Soomaaliya aad bad u yaray runtii maxaad ka xasuustaa Soomaaliya markaad ka timi ama dawladnimadii iyo sidee ku saameysay markaad timi qurbaha oo kale safaaradii Soomaaliya ee lahayd iyo wax ma nagu taaban kartaa adoo maasar والله maxay horta xasuustii aan xasuusto wadankayga waa waxa kaliya noloshayda u sii saamaxday markaas waxa weeyaan noloshayda xasuusta aan xasuusto anigoo yar aan u soo lugeyn jirnay iskuulka cid kasto on aragnay eedii abti iyo saaxiibo ayna wada ahaayeen ciyaartooydii markii la ciyaarahayo la tiigsado iidahoo kale kaba soo qaad markii iidaha la iidahayo ciyaarihii banaanka lagu ciyaaro oo ciyaarihii kala duwan guurowgii shiribkii kabeebeydii saarkii jaandheertii dhaantadii buraanburkii markaas maxay ahayd markii aan xasuusto waxaan isku dayaa inaan wadankayga inaan joogo ama inuu nabad noqon uu doono mar dhow doon sidoo kale arki doono hase yeeshee markii dagaaladii dhacay maalmaha kamid ayaa markii wadankeeni nasiib darro dawladihii safaaradaha dhan ay ka wada xireen waxaa jirta magaalada London safaaradda Soomaalida Soomaali iska lahayd waan agmari jiray anigoo yar oo iskuul dhigan Soomaalida halkan markaas calankii maalintii calankii la dejiyay oo calankii laga dejiyay bartilmaameed ay ahaydoo way iga xigtay sarahoo dhan waana garanayay numberka aan markaas iyada aan agmarahayo kale markaas maalintii aan maxay ahayd calanka aan ka waayay safaaradda Soomaaliya waxa weeyaan ilaa iyo dhowr wiil baan xanuunsanaa waayo waxaan noqday ruux aan wadan lahayn ruux aan calan lahayn dadkii oo markay arkeen dhibaatooyinka dhacahayo si gooni ii fiirinhayo kale anoo shalayto ruux wadan lahaa ruux maxay ahayd mustaqbal wadankiisa inuu ku noqdo uu lahaa oo doonayo marka heesan calan suubano marka waa hees adiga kugu dhalatay oo aad ka tirisay waxyaabaha aad aragtay for example waa hees ma aragtay laga bilaabo sheekadii aan ka maqli jiray Allahu naxariistay ayeeyday iyo awowgay iyo ilaa hadda oo calankii aan baahi ilaa hadda anigu uma malaynhayo inaan ka dhirgay calanka ilaa hadda waan u gaajeysnaa waanka marka miraha heesan adiga sameeyay miraha ila xakam miraha maxaa kamid ah hadda wax yar nooga sheegto anoo jeclaan daawano laakiin hadda wax yar naga xasuusin karto miraha maxay ahayd heeska macnaheeda intuu ruux Soomaali nool yahay in uu waardiye calankaas ka yahay oo waardiyeynhayo oo ina dhacaynin ama inuu si yar u ku leeco ama uu si sahal u ku dhaco waa ayeeyday iyo awowgay hadayba u soo dagaalameen u soo dhinteen aniga hadda ayeey inaan noqdo wax yar baa iga dhiman markaas ubadkaygan inuu sii dhaxlo intii ruux Soomaali uu nafta ay ku sugan tahay markaas waxa weeyaan maxay ahayd heeska calan suubano yaa la dhahaa maxay ahayd in aan ahaado ruux soo jeedo oo habeen iyo maalin u soo jeedo inuu waardiyeeyo sida hadda kaba soo qaad dawladaha badan ee wadankeena soo taagereynhayo oo doonaya inay qabsadaan sidii waagi horta difaac loogu galahayay ruux kastoo Soomaali inuu ku hamiyo inuu dalkiisa daafaco iyo calankaasna inuu ahaado calankii cid kastaba ka koreeyay ilaa maalintii uu fuulay ilaa maanta inta u dhaxaysa waa tahay aad u mahadsantahay Shamso waxaanu jecelahay daawadayaal inaan idiin soo gudbino heestii calan suuban oo nagu luqeynayso fanaanada Shamso Maxamed Food Somali baan ahay
waa tahay calankeena suuban waxaan filayaa in badan oo kamid ah Soomaalida inay xasuus gooniya u leedahay heesta runtii ka hadlaysa calankii Soomaaliya runtii heestan calankeena suuban markaad qaadayso maxaad dareentaa maxay ku dhalaysaa heeskan inaan calankaygii aan u heeso baahi baa iga keentay markii aan qaadana waxaan dareemayaa inaan calankii la hadlahayo oon leeyahay intaan noolnahay oon ku difaacayna inaad marnaba aada dhacaynin oo sidii ay maaragtay hooyo ilmaheeda ugu koolkooliso inayna gaajoonin inta awoodeeda ah inay baahi tirto oo dusha ugu qaado sidaas oo kale ruux kasta Soomaali ana waxaan aaminsanahay in waajibaad uu ka saaran yahay calankaas inuu inaba habeeraatee uu saleecin oo dhaxal maaragtay waa bartilmaameed weeyaan oo haddaan Soomaali ahay maxaan uga duwanahay dadka kale aad ma sida runtii xafilaya dad badan ku taawan inay daawanayaan xataa labiska ku labisan tahay calankii Soomaaliyeed waa tahay haddaan u laabano dhanka jacaylka waxaa jira heeso badan heesaha inta badan saan hore u soo sheegay waa heeso isku wada jira wadani jacayl dhaanto may reer xamar wada dhaho Indonesia heesan Indonesia miraheeda ayaa iskale miraha anaa iskale laxankana abwaan weyn oo qaali ah ayaa iskale oo la dhaho Cabdi Shire Jooqle ayaa la sameeyay heeskan waa hees jacayl ah oo ka metelayso gabar Soomaaliyeed oo jecel maxay ama odageedii ama saaxiibkeed ama ruuxii ay nolol wada wadaageen oo kale markaas heeskan markaan qaadahayo heeskan oo qaabka loo sameeyay musiga ay tumeen niman Afrikaan ah oo qolyahan dariskana Etoobiyaanka ay tumeen kuwaasan ugu talagalay in heesaha ajnabiga inaan dhageystay dadka kale tan inay dhageystaan ayna ku ciyaaraan sidii taangado kale marka heestan Indonesia dad kale miya sida maartay jiibinto kale waxa ku jiibinaya dad kale oo ajnabi ah dad kale oo ajnabi ayaa ciyaarahayo oo waxa jirta ciyaar la dhaho taango la dhaho oo lagu ciyaaro ugula ciyaarahayo heeskaas oo qolyo badan oo si international ahaan ay u dhageystaan oo una ciyaaraan
waayo waxaan aaminsanahay haddaan Soomaali ahay oo East Africa dadka ugu music fiican ugu hees wanaagsan ugu dhaqan fiican inaan ahay markaas in dadka kale heesooda waan dhageysanahay kaygina ay dhageystaan oo kale aad u mahadsantahay daawadayaal waxaan jeclahay inaan idin kala baxo idinka iyo heestii Indonesia ee fanaanada Shamsa Maxamed Food
kashki alabta ay soo sar kama kale huno kashki alabta ay soo sar kama kale huno kashki alabta ay soo sar kashki alabta ay soo sar kama kale huno kashki alabta ay soo sar kama kale huno kashki alabta ay soo sar kama kale huno kashki waa tahay kama kale hunoy kashki alabta soo saar heestan aad wada qaadaysan adiga iyo fanaanka Mandela maxay ku saabsan heestan heeskan waxay ku saabsan tahay waa hees jacayl ah oo haddana aan ugu talagalay dadka da'da yar hees ay markay ciyaarayaan ay ku raaxaystaan iyo erayadii oo la isku dhex qasay miraha iyo laxanka markay miraha yaa iskale miraha iyo laxanka waana iskale labadooda sameeyay labadooda codkuna waa isruuca sax maxay ahayd musicana waxaa tumay nin aad iyo aad u da'yar oo la dhaho maxamed karaamo ayaa musicana tumay markaas heeskan waqti badan baan siiyey heeskan aan doonayo qurbaha dhalinyarada joogto da'da yar inay ku raaxaystaan musigoodii waxay dhaqanka u leeyihiin intay dhageysan lahaayeen heesa shisheeye marka muusikadii western kale baa lagu dhacay sidii u dhageystaan dhalinyaradu iyo iyadii oo maaragtay kama kaalay huunow kashkii laafta isoo saar maxay ahayd erey kalgacayl ah haddana ereyadii halhayska ay u lahayd ummadda Soomaaliyeed wadana ku jiro maadaama dhalinyaro badan oo wadankan ku dhalatay oo heesihii jecel inay dhageystaan wax u sameeyo micno oo kaleeto waxaa jira heesho badan oo sameysay oo dhaanta ah ciyaarta leeyahay dhaantada runtii dad badan ay aad u xiiseeyaan dhaantadaada heesa runtii fara badan sida waa hawl habeen sida ila dheel dhaantada heestan dad soo qaadano la yiraahdo waa hawl habeen yaa miraha iskale miraha iyo laxanka waana iskale dhaanto waa hawl habeen waxa weeyaan badanaa ciyaaraha Soomaalida ama saar ha ahaada ama dhaanto habeenkii baa la ciyaaraa markaas ciyaartaas oo keento gabdhihii wiilasha inay isku shukaansadaan markaas dhaanto waa hawl habeen saasay ku timid marka yaa kula qaaday ma kaliya baad ku qaadaysaa mase may waxa ila qaadahayo fanaanka da'da yar Cabdi Holland yaa ila qaadahayo maxay ahayd musicana maxamed karaama ay sameeyay oo tumay markaas dhaanto waa hawl habeen anigu dhaantada runtii waan ka jeclahay ciyaaraha kale ma garanayo ayeeyday baa markay gardaadinaysay ama ruuxi jirtay dhaantada ku heesi jirtay markaas dhaantada dhiigaygaaba ku shaqeeyay inta badan iyo ciyaaraha maxay ahayd sida maymayga iyo kabeebeyda kale waa wax aan aad iyo aad ii hayay inaan Soomaali ahay dhaqankayga inaan ku dhaganaado ama micno u sameeyay noloshayda markaas soo dhawaada heestii waa hawl habeen waa dhaanto fanaaniintii Cabdi Holland
daayahaygii wacnaayo waan ku dhowran hayaaye 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 hayga dhuuman hayga dheeran dul shisheeya hayga aadi 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 اسمه عقلتنا برسكي سنكتان اسمه عقلتنا برسكي سنكتان اسمه عقلتنا برسكي سنكتان اسمه عقلتنا برسكي سنكتان waxaan filayaa daawadayaal in badan oo ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed inay aad uga heleen heesta dhaanto wali waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan martin noogu ahayd fanaanada qaranka Soomaaliyeed aan oran karo waa fanaanad waa abwaanad waa wadaneed Soomaaliyeed Shamso Maxamed Food oo caawa halkan inoogu soo bandhigtay heeso fara badan heeso wadaniya heeso jacayla heeso reexamara heeso dhaanta iyo waliba heeso afka meemeyga wali farikama qodna faanoole waxa noo soo socda heesihii reexamarka ahaa waxa noo soo socda heesihii meemeyga ahaa hees kale waxa jirta la yiraahdo waran oo cusub aan filayna dhawaan soo saartay heesta waran maxay ugu saabsantaa heeska aniga laxankeeda anaa iskale maxay ahayd mirahana waxaa iskale nin la dhaho Maxamed Yaxye heeskaas oo hees wadani ah kana hadlayso fararaqa wadankeena ka jiro iyo maadaama aan nahay ummad walaala ah inaan isku duubnaano oo isticmaalino oo haddana dadkii kale waxay noo arkaan inaan ka liidano aniga shakhsi ahaan waxay ugu tahay difaato aad iyo aad u weyn way waxaan isku haystaa inaan ahay ugu sareeyo hadaan ahay Soomaali inaan ummadda ugu sareeyo markaas warankaasi ku timid heestan waa hees wadaniya ay nagu luqeyn doonto fanaanada Shamso Maxamed Food kusoo dhawaada heestii oo waliba si live ama si toosa ay fanaanadu noogu luqeyn doonto kusoo dhawaada walaalahay wada joogna rabaa wadankayga wanaagsan iyo walaalahay alla maynaan ka tawee wadankayga wanaagsan iyo walaalahay wada joogna rabaa
hoos waa ku weyntahay waa noo dhexeeya waxkaan na siiyey wax u qaybsano waxaan dhacaynine waa noo dhexeeya waxkaan na siiyey wax u qaybsano waxaan dhacaynine waa idaafen iga wada horeeya dadka waa u liita may wada yasaayeen waqti looma laabne walaal aan wada heshiinaa rabaa aan wada heshiinaa rabnaa bicii waa idaafen iga wada horeeya dadka waa u liita may wada yasaayeen waqti looma laabne walaal aan wada heshiinaa rabaa aan wada heshiinaa rabnaa walaalka horan looma quure walaalka balbahaarka dhowre walaalka walaalka horan looma quure walaalka balbahaarka dhowre walaalka walwalaan ku joognaaye asayda waa wada heynaa yar iyo way waxad waaye ma dhigayne waxtarkeen aan muujine walwalaan ku joognaaye asayda waa wada heynaa yar iyo way waxad waaye ma dhigayne waxtarkeen aan muujine wadanka waa ku kornee waxtarkiisa maahiye waxyeelaan ka dhowrno wajibaana saarane wadanka waa ku kornee waxtarkiisa maahine waxyeelaan ka dhowrno wajibaana saarane waqaaloonimana isku soo walwaalne isweyne ismaroone sidii waagii horeeta weelkaan wadaagna rabaaye wada jiir ahaana wataaye wada jiir ahaana wanaage waqaaloonimana isku soo walwaalne isweyne ismaroone sidii waagii horeeta wadaagna rabaaye wada jiir ahaana wataaye wada jiir ahaana wanaage walaalka horan looma quure walaalka walbahaarka dhowre walaalka walaalka horan looma quure walaalka balbahaarka dhowre walaalka waa tahay waa loo turaa walaalka walbaha looma waxaan filayaa in badan oo kamid dadku inay aad uga wada heleen heesta live-ka oo stage-ka noo saarnayn ama ay noo qaadayeen fanaanada gobolada Shamsa Maxamed Foodi waliba fanaanka daada yar Cabdiqani daawadayaal wali fari kama qodna faan wali waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta
haddana waxaanu jecel lahay oo inoo soo socda heesihii weli yaa isgaaraba heesihii reexamarka ahaa heesihii afka mameega iyo weliba qaar kaloo fara badan oo ka mid ah heesaha dhaantada loo yaqaano caawa aniga laftooga caawa waxaan jeclahay inaan dhaantada tumo caawa dhaantada rag badan oo caawa farsamo yaqaanka ayaa weliba iyaguna kacay waxaan jeclahay hadda inaad ku soo dhawaataan hees la yidhaahdo ila dheel ila dheelay dhuuba dhex yaray dhaantada ila dheelay heestan yaa sameeyay miraheeda heestan ila dheelay heestan miraha ilaxanka waa aniga sameeyay miraha ilaxanka adaa sameeyay sidii dhaantadana waa lagu luqeynaya maxay ahayd muusigana nin aad u daayar oo laakiin ilaahay uu siiyay farsamada muusiga Mustafa Axmed Karamo ayaa asagana sameeyay muusiga ii tumay
markaas ila dheelay in dadkii ay ku ciyaaraan heeso hore oo jiri jiray bay u yara soo eg tahay ila dheelay dhaantada waxaa weeyaan dhaantada waa sidii waa silsilad socoto kale markaas laxankeeda waa wuu socdaa dadna dhowrkii sano wuu isbedelaa markaas waxaa la dhahaa jaandheer baa tan la dhahaa markaas waxaa ka dambeeyey heestan waa jaandheer dhaanta maaha may waa jaandheertii iyo dhaantadii oo isku jirto oo isku jirto oo mixer weeyaan markaas waxaa weeyaan ciyaaraha iyo gabayada iyo maasooyinka iyo dhaantada waxay sameeyaan way issoo dhexgalaan intooda badan markaas in dadkiina ay ku ciyaaraan ay ku raaxaystaan heesahoodii dhaqanka waan gartay haddaan usoo laabano dhaantada dadka Soomaaliyeed lahjado kala duwan ayay ku hadlaan sidaan ka warqabno adiga laftigaagu waxaad soo martay gobolada Bayo Bakool oo kale hees ayaa jirta afka Maameyga oo la yiraahdo Beerey heesan Beerey miraha yaa ku sameeyay miraha iyo laxanka anaa iska leh waayo waxaan ka soo jeedaa dhul beereed ayaan ka soo jeedaa Beerey macnaheedu markaa Beerey waa ciyaar waxaa jirta Beerey la dhaho oo kabeebeyda iyo maaymayga qayb kamid ah markaas waa Beerey oo kale waa hal qabsi oo kale laakiin ujeedada waxa weeyaan dadka beeraha leh xilliga ay ciyaaraan iyo gabdhaha iyo wiilasha isku yimaadaan waa markii bakaarhiina ay buuxsamaan warayhiina biyaha ku buuxaan oo haddana xoolihiina ay dhirgeen markaas ciyaar la isugu yimaadaan markaas waxaa weeyaan Beerey tumaneed Beereyda xilligaas ay ciyaaraan waayo gabadhina ama arigii bay mashquul ku tahay iyo lo'di raacideeda wiilkiina inuu beerti falo ama geela uu arooriyo markaas markii barwaaqada ay dhacdo in dadkii ay dadna isku yimaadaan dhalinyarada ahaa ay ciyaaro tuntaan markaas heeskaas saas ku samaysan waan kartaa marka dad badan ayaa ku daawanaya ma nagu sharxi kartaa markaan leeyahay bakaartii buusante waroogo butaacin ninka ka yimaaday Baay iyo Bakool si fiican buu u dareemayaa waayo nolosha dhabta ah in bakaarta iyo warihii ay ku saabsan tahay markaas ninka waa garta Shamso dib ayaad nooga sharxi doontaa markay dadku daawadaan waxaan u yara deenaynaa daawadaashu inay nala yara daawadaan heestii Beerey oo Shamso ku luuqeynayso afka Maameyga Shane
bakeeka oo idaasan ku soo gabagabeynaa heestii Mameyga waxaan filayaa dad badan oo kamid ah ama ku hadla luqadda Mameyga inay heestan aad uga wada helayeen waxa jira heeso kale oo reexamar ah wad sameysay waxaan soo dhageysanay heestii wadaniga ahayd heesii jacaylka ahayd heesii dhaantada ahayd hadda waxa ugu dambeysay heestii Mameyga maadaama aad ku soo gortay xamar oo yaraantaadina markii ugu dambeysay xamar ka soo baxday heeso reexamar ma sameysay hees reexamar waa sameeyey hees oo maxay ahayd la dhaho laamo iyo hees kale too la dhaho joog iyo hees ayadana la dhaho imaaw saddexaas hees baan sameeyey laakiin heeska laamo ayaa hadda ugu dambeeyey kaasoo oo aan kusoo duubay wadanka Kenya taasoo ay maadaama xamar aan kusoo koray xeebta liido iyo jasiiro iyo meelahaas wax meelo weeg markaan arko dadna inaan ku qaado heeskaygii laamo ahaadeen aad bay marka heesan laamo miraha yaa iskale miraha ana iskale laxankana nin la dhaho Cali Dheere ayaa iskale markaas waa maxay ahayd waa hees aan aad u jecelahay marka hees xasuus gooniyo kuuba waan tahay waxaan jecelahay inaan marka hore daawadaasha heesta aynu la daawadaan kadib aynu ka falanqono bal daawadayaal nala yara daawada heestii laamo oo inagu luqeynayso fanaanada Shamso Maxamed Food Liban adaa
shamso heesana anaga waa runtii ku qiirooday hees sare xamarka lamaamo ugu dambeyntii guntii oo gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa gabagabadii barnaamijkan shamso adigoo ka faa'iideysanaya jaaniskan maxaad soo wadaa hadda heesa badan waanu daawanay maxaad soo wadaa hadda waxaan soo wadaa waxaa jirto baahi weyn oo hayso dhalinyarada Soomaaliyeed xagga fankii suudaanta iyo hidiyo dhaqankii markaas hadda waxaan abuurnay koox la dhaho Wadajir kooxdaas oo intooda badan ka aas-aasan Sweden annagana aan hadda nahay aniga iyo 7 ruux oo Mandela iyo uu kamid yahay iyo Mustafa Karaamo Cabdiqani Yare qadar uu kamid yahay markaas heeso kooxda Wadajir oo u soo jeesatay heesii wadaniga iyo hidiyo dhaqanka iyo ayaga oo doonayaan inay u soo saraan fankii suudaanti dhalinyarada yar ee hadda soo kacayso inay heesahooda ay siiyaan chance ay siiyaan waqti ay siiyaan heestii Soomaalinimadii waan gartay ya jeceshahay jaaniskan halkan inaad ka salaanto ama gabagabadii maxaa soo jeedinahay dadweynaha Soomaaliyeed ee iyagu daawanaya caawa والله maxay ahayd dhamaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waliba Soomaali weyn hadda dawladda Soomaaliya hadda ka taagan waan ugu mahadnaqayaa in dhaqankii iyo fankii Suudaanta dib loo soo celiyo lagana taageerayo taasaan ugu mahadnaqayaa taasoo ay ummadda Soomaaliyeed ay baahi weyn ay loo qabay inta muddo ah iyo dhamaan kooxda Wadajir iyo koox la dhaho ku saameysan oo anaga hadda inaan Wadajir aan xoojino nagu sii muujisay oo ka samaysan magaalada Itubori iyo Maalmo iyo dhamaan family-ga oo meelay joogan iyo ummadda Soomaaliyeed ee heesaha abuurta abwaanada iyo walaalkii qaali maxay Xuseen Shire ciyaar jecel kaasoo iyo Mandela kuwaasoo markastaba aan iska kaashano wixii wax wada qabasho waan gartay aad maasan tahay daawadayaal intaas aan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo todobaadkan kaga imanayay studio-ga SNTV ee magaalada London barnaamijkan oo idin soo tabinaya anigu waa Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Boocame dhanka farsamada waa Abuukar Maas iyo waliba Cabdirasaaq Socoto intaanu barnaamijkan barnaamij la mid ah kulmo doono waa bahda SNTV oo isku duuban oo idinkaga tagaya sidaas iyo sarag dambe oo xiiso leh والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.